مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أوذيت في الله لم تهزم ولم تهن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، ولا ليال وحلقتين طبنات برنامج كيني تحنها أها وأن أمك عدرني محمد رسول الله أو أها تاريخ نولاتك رسول كان صوبا صلوات ربي وسلامه عليه. ولا ليال waxaan joognaa sanadii tobanaad ayayna joognaa ee bicthada soo saaridii rasuulkeena suuban salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi. walaalayaal, haddii aan in yar ku sameeyo mulakhas intii ayna soo dhaafnay, rasuulka salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi mar alaaliyo markii uu dhasho ayaa waxaa la geynayaa baadiya bani sacad ayuu tagahayaa. xaliimad sacdiya ayaa nuujinaysaa. xaliimo 5 sano ayuu la joogayaa. hooyadii ayay u soo celinaysaa rasuulkii oo jira 5 sano. 1 sano ayuu la joogayaa magaalada Makka. 6 sano marka uu gaaro salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi ayaa waxay ula kacaysaa Madiina iyo in ay soo barto ehelkiisii iyo qaraabadiisii iyo qaraabada aabihii reer abtiyaalkii oo dhan in ay rasuulka soo barto sallallahu alayhi wa sallam. waa reer wada awfiyaa ah. kadib way ka soo laaban hayaan. dhaxda ayay ku dhimanaysaa Aamina. rasuulku waa agoon, aabihiina wuu dhintay isagoo uur ku jira, hooyadiina waa tan maanta dul taagan yahay sallallahu alayhi wa sallam. guriga wuxuu ku soo wareegayaa awowgii Abdul Muttalib. 2 sano ayuu joogayaa markii noloshii uu la qabsaday oo uu isir hadda degaysa ayaa haddana Ilaahay oofsaday Abdul Muttalib. الله dhibku u soo maray fiir sallallahu alayhi wa sallam. 8 sano markuu gaaro adeerkii Aba Talib ayuu ku soo wareegayaa gurigiisii. gurigaas 10 ciyaal ayaa jooga. markaasuu bilaabaya intuu dareemo mas'uuliyad ayuu bilaabaya in uu shaqeeyo isagoo 8 jir ah oo uu reerka la koriyo Aba Talib. ariga ayuu raacaya rasuulka sallallahu rabbi wa salaam alayhi magaalada Makka. wax walba uu soo helan uu u geynayaa Aba Talib ilmaha yar yarka ah. reerkii ayaa wuxuu u noqday maciin, ayuu u noqday kaalmo, ayuu u noqday mas'uuliyad. ayuu 8 sano weeyaan wuxuuna barayaa sida aan u shaqaysan lahayn, sidaan wax u caawin lahayn, mas'uuliyadda sidaan u dareemi lahayn, sidaan bulshada wax ugu qaban lahayn ayuuna barayaa. waa 8 jir sallallahu alayhi wa sallam. kadib wuxuu markuu gaaro 12 sano tijaaro ayaa wuxuu u raacayaa adeerkii Busra ayuu u raacayaa, yani Sham, ardu Sham. kadib 12 sano jir ayuu ahaa. 15 markuu uu gaaro dagaalkii waxa dhacaya xilful la oran jiray xarbul fijar. dagaalka kama una qayb galin rasuulka, laakiin warmaha iyo seefaha iyo falaaraha waxba uu soo ururin jiray, laakiin wuxuu qaatay khibrad iyo macluumaad guud sida loo dagaalamo, sida loo rogaal celiyo, sida wax loo gooyo, sida wax loo shiisho. waxyaabo far badan oo khibrada ayuu rasuulka sallallahu rabbi wa salaamu alayhi oo halka ka faa'iiday. dagaalka xarbul fijar markii uu dhamaaday kadibna waxa uu ka qayb galay heshiis ama isbahaysi la oran jiray isbahaysigii xilful fadul. xilful fadul wuxuu ahaa isbahaysigii xaq celinta. waa isbahaysi loogu gargaarayay masaakiinta dulman,
maxaasta dadka aan tabarta lahayn taagta daran dhulka jiifa aan maciin iyo meelay ciirsadaan aan lahayn ayuu rasuulku sallallahu alayhi wasallam uu ka qayb galay oo shirkaas waata waliba uu u shalaynayo oo uu leeyahay sallallahu alayhi wasallam isagoo jooga Madiina guriga Abdullah ibn Jud'an ayaan waxaan ka qayb galay intaan diinta la igu soo dejinin ka hor isbahaysi ayaan ka qayb galay masaakiinta loogu gargaarahayay kan dulman xaqiisa loogu dhicinayay oo dulmiga looga qaadahayay maanta oo aan islaam ahay hadii la igu soo celin lahaa ama la igu yeeri lahaa waan ka qayb gali lahaa daarta Abdullah ibn Jud'an ayaa lagu qabtay rasuulka sallallahu alayhi wasallam alayhi 25 sano markii uu gaarayna Khadiija ayuu aroosay oo uu guursaday ilmahaas faraha badan ee ilaahay lixda ah ayuu rasuulka sallallahu alayhi wasallam alayhi ilaahay ku irsaaqay 35 sano markii uu gaaray taariikhda sida ula socda 35 sano markii uu gaarayna Kacbada ayaa dib loo habeeyay oo loo dhisay waatii qolooyinkii Quraysheed markii ay isku khilaafeen dhagax cidii saari lahayd meeshiisa oo dhiig inta gacmaha la gashtay la yiri waa inuu dagaal ninka reerka u soo hara ayaa dhagax saaraya waatu ilaahay Muhammad sallallahu alayhi wasallam alayhi uu ku badbaadiyay dhiigoodii isaga ayaa saaray khatadiisii fiicneed ayaa lagu saaray dhagaxii halka sallallahu alayhi wasallam alayhi kadibna ilaahay wuxuu jecelaysiiyay kali noqoshada ayuu jecelaysiiyay iyo wuxuu ku hanuuniyay qaar Xiraa godkii lagu soo dejiyay Iqra 4 sano markii uu gaaray ayaa quraanka lagu soo dejiyay Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq bi'sadi ayaa bilaabatay marka 3 sano oo sirri ah oo diinta si tartiib ah lagu waday gurigii Daarul Arqam ibn Abi al-Arqam oo 17 jir ahaa reer Makhzumi ahaa gurigiisa ayaa lagu fidanayay gaaladuna ma aan ogaanin kadib دعوذي كرقد أيالي الرسول صلوات ربي وسلامه عليه فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين واتي بورتي الصفايد وكو استاغي واتي أبالا بحي وقانت كالجاري ويان رسول صلوات ربي وسلام عليه وحلقوا بالله بي أصحابتي سي إن لعذابه عذابتي وحمد إلا مريو تدك لي قودي إن لداديو إن لقوبو إن ليه لغريدو سيحن لولا نقم أيا لقاري سندي الشانات بعثة أيا وفصحي وقلادي إن أهجرودان أرض حبشة أو يري وحا حكومة أو هيا بقر أيا جوغا أكتيس آن عدنا لغدو المنين هلكا أيا أوريغين صلوات ربي والسلام عليه سندي لحد آخر كذي أيا إلهي نسر سيي مركي أي سوء إسلامين حمزة ابن عبد المطلب أسد الله إيه عمر ابن الخطاب عمر الفاروق صلوات ربي وسلامه عليه سندي تدواد مركي لقاري أيا أو أي قالدي قريشيت أي قرون وين سي أي أولا نقمان وحوى البابا أي hortooda ay ku xidmeen ayaa waxay go'aansadeen in ay xisaab ku sameeyaan oo ay ku go'doomiyaan shacabka Abi Talib godka boorahaas hoostooda in lagu go'doomiyo ilaa sanadii 10aad markii laga soo baxay kadib Abu Talib ayaa geeriyoonaya isla sanadka 50 cisho kadibna waxa geeriyoonaya Khadiija radiyallahu anha sanadii 10aad ayaa lagu jiraa imika oo aynu ka bilaabanayna caawa Khadiija iyo Abu Talib intuba waa ay geeriyoodeen rasuulka marka waxa weeyaan murugta iyo ciilka iyo dadka ka geeriyooday waxa weeyaan dacwadiisii ma ayan hakinin wuxuu doonayaa rasuulka sallallahu alayhi wasallam maadaama uu 10 sano joogay Makka wax faa'iido ah oo haba yaraatee uu helayna aanay jirin ayaa wuxuu go'aansaday in dacwadiisan uu u raadiyo dhul cusub iyo dad cusub bulsho cusub inuu u raadiyo markaas waxa uu aaday rasuulka sallallahu wasallam alayhi Taif ayaa la tagay Taif ayuu aaday Taif magaalada Makka imisa u jirtaa waxay u jirtaa in ka badan 60 mayl waa buuro waa dhagxaan waa gudcur waa qorax waxa weeyaan lama mari karaayo waxa gaadiid ah oo uu haystay malaha rasuulka sallallahu wasallam alayhi hay yuu ka haystay Zayd ibn Haritha ay israaceen halkii baa laga dhaqaaqay waqti gudcur ah alaaliye markay ka tageen magaaladii iyadoo la ogeyn laga tagay magaaladii Makka ayaa cid walba oo uu ku sii mar dhaxdo oo dacwadii Ilaahay uu u fidinayay oo uu u sheegayay sallallahu alayhi wasallam laakiin waxba kama ayan qaadanin akhiran isagoo rasuulka lugaynaya ayaa wuxuu 60 kilomitir in ka badan uu tagay magaaladii Taif ahayd koofiyeyntii iyo malay halka joogay dadkii madaxda ahaa ayuu qaabilay oo uu tagay waji ka waji laakiin qolooyinkii reer Taif maxay ku sameeyeen
maxay yeeleen waxay ku sameeyeen waxay ku direen sufahadii dadkii waala maangaabka ahaa aqliga gaabnaa adoomihii dadkii ma arkaa danyarta ahaa haweenkii ciyaalkii wixii oo dhan baa la yiri ninkan waala magaalada laga saaro hay waa rasuulkaaga khayru khalqillah laga saaro magaalada muxuu wadaa ma waxbuu ka doonayaa faa'iido abadan laakiin wuxuu wadaa nuur rushdi hanuun naxariis janno u wada oo gacmaha ugu sida oo uu leeyahay iga hooya kaale gala jannada markaas la cayriyo rasuulka sallallahu alayhi wa sallam wax ciidana oo uu haysto haba yaraatee mal wax difaaciyana male ya quro wehela oo la jooga Zayd ibn Haritha markii meesha rasuulkii lagu bilaabay dhagxaan in lagu qayliyo ya markaas magaalada rasuulku muxuu sameeyay uu isaga cararay isaga iyo Zaydkii oo waliba dhagxaan sida lagu tuurayo waxa way xaggas laba saf ayay noqdeen rasuulkan wuu socdaa wuu boobsiinaya socodka bal inay ka haraan halkaas intay ka safteen dhagxaan markaas rasuulka inta uga dhacay kan dhaawacay salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi ya Zayd ibn Haritha markuu maxay kaalintiisa ku aadan tijaaha rasuulihi salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi markaas hadda dhinacu isleeyahay dhinacaana daran dhagxaanta markaas wuxuu isaga dhigaa gaashaan halkaas dhagxaantii iyo kabihii iyo wixii oo dhan ay ku soo hoobtaan isagoo dhan baa wada dhiig noqday rasuulka waxa la dhagaxyeynayay muddo ilaa iyo inta in leeg masaafo inta leeg 3 kiiloomitir ilaa uu markii dambe uu galo beer ay lahaayeen ilmo Rabiica Shayba iyo Utba oo magaalada 3 kiiloomitir u jirtay markaas ay ka hareen salawaatu rabbi wa salaamu alayhi 3 kiiloomitir ayaa la dhagaxyeynayay dhagaxaas waxa uu sii darnaanay jabka iyo caayda lagu hayay sallallahu alayhi wa sallam waa 3 kiiloomitir ودينته محمد وسيدا صلوات ربي وسلام عليه وأصومري ليجيسي أدادي أول قف أو ليج أدادي دينته محمد بوها صلى الله عليه وسلم مركز رسولك وحاسك ليجي كبيهسي يعكتيسي ليجي استجن وكعلينا يو لولك إن أجار ليجي صلوات ربي وسلام عليه بارتا مركي أوجالي أو أي كهرين أيها رسولك أو مرويسا يا بن وحماشي كأركي المربيعة بأنحن حالته كسوغن يهي رسولك صلى الله عليه وسلم إلهي بأن كل أرشي كي أنك نغميد أمد كيني دعوة إلهي إسوه قدنية انت سوء لباتا أي قارين خير خلق الله أيات لباتا سكود عيسى أنك أو أن ليجري أسوء أيات كسوغن رسولك صلوات ربي وسلامه عليه وكسا ما أنت محن هينا وحلقي يا باه iska dhaaf qof kale oo islaaxinay nafsadeena xataa inaanay ka daadegsaneen diinta la soo dajiyay rasuulkana 70 kilomitir 60 kilomitir u lugeynaya inuu ka soo daadejiyo wixii ilaahay uu soo diray salawaatu rabbi wa salaamu alayhi kaalin maran weeyaan wana looga baahnaa anaga tayib an iyagoo arinta xaaladda inta ay marayso rasuulka maanta halkaas uu joogaa wuu dhiigaya isagoo dhan korkiisa wada dhiiga wuu xanuunsanaya meel walba xanuunaysa wuu taahaya rasuulka sallallahu alayhi wa sallam maanta hadaad isleedahay waaga hadaad joogi lahayd rasuulkaaga suuban salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi waad u gargaari lahayd sida Zayd oo kale waad ka dhicin lahayd waad difaaci lahayd oo sufahada dadka waalan adoomaha waad ka difaaci lahayd hadaad isleedahay wallahi walladhi nafsu muhammadin biyadihi maanta waxa weeyaan sunnadiisii baa dhiigaysa dhaxdeena ku dhiigaysa dhaxdeena lagu dhagaxyeynaya dhaxdeena ayay ku dulman tahay sunnadii muhammad salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi diintii uu noo soo diray maanta halkan ay ku dulman tahay maanta ayay ugu baahi badan tahay in loo difaaco sidii waaga Muhammad loo difaacayay nafsadiisa asxaabu u difaacayeen isaga xataa diinta uu difaacayay maanta u baahan tahay meel walba waa aragtaan dadkii waa dayacayihiin dhalinyaradii waa dayacan tahay dadkii diinta loo soo dajiyay ee la rabay noloshooda iyo dalkooda iyo dadkooda in ay ku nuuriyaan oo ay ku ifiyaan maanta mugdi gudcur ayay ku noolyihiin maanta u baahan tahay sunnada wax ilaaliya maanta ayay u baahan tahay wax kor u qaada maanta ayay difaac u baahan tahay maanta ayay dabaqaad iyo in aad dabaqdaan ay u baahan tahay imisa tukata maanta anaga imisa tukata imisa salaadi ilaahay ee samada laga soo dheelmiyay samadana looga keenay maanta Allahu akbar dhahay oo ilaahay hor istaagaya
الله يرام بدنا صلاة الصبح ما بجرت بترى أفر بالتو كذا أنت حتى إلا من رحم أنت إلا نحرستي ما هني سنتنا ما أنت أبانت أمرك إن وحلقة قبته طيب رسولك صلوات ربي وسلامه عليه استوى هالكاجوجة أيا وحو بالله مرك إن إلهي بريو داعي نساسواي داعي وحلو باهن يهي مر والبا وأدعو جذنيسيد أما حوق لهاو قوة لهاو قربي عشيرة لهاو أما ضعيف أهاو هاد إيجار كما مارتد إلهي ومركز وقع ما كر أغتاقي صلوات ربي وسلامه عليه دعا ديسان قيمي بدن قيرة بدن لدن كالي نقاجينيسا بل دقيسو وحوليهي صلوات ربي وسلامه عليه اللهم إليك أشكو ضعف قوتي اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين أنت ربي أنت رب المستضعفين أنت ربي أنت رب المستضعفين أنت ربي ورسولكم مدوا المنذين مقالة مقدشة ورسول ليجيني مدادن هايو هذه جر سوحا هر يهبين لقوبة هايو ليجيني ماها إذن كونن هب وذنين المهين اسكا كرسانيا إلهين عابديا معيش الديني يقتل يونكيني اسكرات سنهايا سو معها وحقريها كرك لو قدو منها يسو إذن كماها سو إذن كماها وحا المهوذي هر يهبين أو يهيان وحقها هيا أو أي دبيلها روببك أي كهيان يا أنت قل حيث مقدشي أفقويسو إذن كماها سو محاستي ماهدين سو مساكنتي ماهدين كدليش أيا إذن كقصوا رسولك نصوبا صلوات ربي وسلامه عليه هبينكي قعمها كر أتاقا قعمها كر أتاقا لها يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين أنت ربي إلى من تكلني إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي صلوات ربي وسلام عليه بل في روح له وحن نباتة أي يقول عيسو dhibkan igaarahayo dhiigan la iga daadinahayo hadii ayaan ahayn dambi aan galay oo aad iga gudaysid ilaahayow cara xaggaaga ka imaadi hadayaan ahayn ya oo intaan imtixaan ay tahay ya ilaahayow fala ubali danka magalahayo oo ma aaba yeelahayo dacwadaada raali baan ku ahay waa ku qanacsanahay nafsadeyda hadii u baxayso waan ku qanacsanahay in lam yakun bika alayya ghadab fala ubali دعادي مركي مقلان يا رسولك سيدو مدلون وياهي وطاهيو أي حوغها ويدمقان هيان إلمر ربيعة عنب بأوكينا هيان ويحي وقصوا ديبا هيان عداس أدون يرأوا شقيني أو نصارى أها مركا أو لنعا إيانينوا كي من العراق مركا أسوا ديبان أي أوكينا هيان رسولك صلوات ربي وسلامه عليه بدبتي سفيري إسقى سلا أولبا أيو دعوة هدنا وضع مرنا بكما أنو فريسني صلى الله عليه وسلم ما بيقانا باستراحة النسيم ما بيقانا صلوات ربي وسلامه عليه ما وقتي أنا وقتي أن دعوة قدن كرناء أنا وسلا أطاهينا يا مس إسبتال أيان رهادين لهين عيدا أيان دونا لهين سيان وأرسن أنا صلوات ربي وسلامه عليه سنة أيان نوغسوغن وحان نوغسوغن كده شيء اقتداء مركزه عنبكي مركو قاعد أتاقيي أيا وحيري بسم الله مركاسو قاتي ويلكو يابي وحير والله كلمدان دادك مقالة الجوغة مرحان من يقانان ويابي رسولك كأنه وحود درامي ويلك إنانو دادك إهلك كميدة هاين دادك مقالة كميدة هاين مركاسو يري حقيقة تمد وحيري وحانك إمد نينوا رسولك وحيري مقالة دي أما قرية دي ننكي صالح أها wuxuu ahaa ninkii saalix ahaa Yunus ibn Matta oo gartay wuxuu yahay oo Yunus ibn Matta miyaad garanaysaa wuxuu yiri wuxuu ahaa walaalkay nabi buu ahaa anna nabi baan ahay
mar alliyo markii sida uu yiri oo uu gartay xaqiiqadii ayaa ilaahay qalbigiisii wuxuu ku riday hanuun inshiraax qalbigii baa loo waasiciyay nuurkii iyo iimaankii buu dareemay markaasuu rasuulku intuu ku soo booday ayuu markii ugu horeysay halka madaxa ka dhunkaday Allah wajiga shariifka ah ayuu cadaas wuxuu u yeeshay nasiib in uu dhunkado markaasuu hadana gacmihii ka dhunkaday markaasuu hadana gomadihiisa rasuulku uu dhunkaday salawaatu rabbi wa salaamu alayhi halkaas ayuu cadaas ku soo islaamay bal fiiri mucjisada dhacaysa rasuulku wuxuu 60 kilomitir u soo lugeeyay reer Taa'if Thaqiif in ay islaamaan oo uu wax ka helo laakiin ilaahay muxuu gartay ilaahayna maxaa meel u tiilay cadaas in uu halkan Taa'ifa uu ku islaamo laakiin rasuulku ma aanan ogeyn insan sida weeyaan waxba qorsheynaya ilaahayna waxba qorsheynaya ti ilaahay bay noqonaysaa marka insha Allah qadar haysan kadib ayaan soo laabanayna